dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ku saabsan arrimaha nabadda iyo horumarinta bulshada ee magaalada Gaalkacyo waxaana inoo diyaarisay wariyaasha waxa lagu eedeeyaa in ay ka qayb qaataan dagaalada runtii wariyaashu waxay u badan yihiin dhalinyaro inta badanna khibrad badan oo ku saabsan dagaalada iyo xaaladaha ay ka maqan tahay waxa kaloo jirta oo iyaduna xoog ay siinayso oo runtii inay ka qayb qaataan keenaysa arrinta qabaa'ilka oo iyaduna saameynteeda leh nadihii 2015 iyo 2016 mid kamid ah idaacadaha ka shaqeeya magaalada Gaalkacyo ayaa waxay sameysay barnaamij dood ah labadii qof ee doodda ka qayb galayay mid kamid ah wuxuu yiri subaxii magaalada waxaan ku garaacinaa motors ama wax loo yaqaan hubiye xaqiiqatan waxay ahayd idaacadda markii barnaamijka baxay 3 saac iyo 45 daqiiqo ilaa 4 saac 5 saac habeenimo magaalada waxa ka qaxay dadka ugu badnaa markii hore maana aqoonin sida loo tabiyo wararka ku saabsan colaadaha iyo sida balance loogu sameeyo laakiin casharo badan oo aan ka bartay waxay iga caawiyeen inaan barto sida wararka colaadaha ku saabsan iyo dhibaatooyinka wariyuhu uu sababi karo laga foojignaado baan ka bartay bacda tababar anigu go'aan waxaan ku gaaray in aan war dambe oo saameyn keena ama xanaf leh oo colaad sababi kara inaan iska dhowro wixii ila muhiimsanaana waxay ahayd dhalinyaradii saaxiibaday ahaa oo runtii aanu isku xirfadda iyo isku gruubka ahayn inaan ku waaniyo in ay magaaladu isku magaalo ahaanayso dadkuna isku dad ahaanayaan aan marna lagu kala guurayn ee aan la kala raacin dad danayow gaar ah kala leh